maskaxda ilmaha waxaa ku kobcin kartaa qaabab kala duwan. Haddii aad rabto marka ilmahaaga inay waqti la qaataan waxbarashada ay iska yareeyaan TV-ga, waxaan u baahanahay activity-yadan oo kale ilmihiina inaad la samaysaan. Hadda warqadda hortaada ka muuqata arag waxaa loo baahan yahay in lala socdo xuruufta meelaha laga soo galay ubaxaasuna ku dhamaaday. Marka ilmaha waxaa ka arki kartaa maskaxdiisa qaabka uu fakarayo, qaabka maaragtay wax iskugu aadinayo, waxaas oo dhan ay ka caawinaysaa. halkan haddana waxaan dhahaa hooyo kalarka cagaaran soo qaado xaraf hebel ku soo raadi markuu ku raadinaya. haddana kalarka la u dhiibi doona waxaan dhihi doonaa xaraf hebel ku soo raadi uu ku soo raadinaya. marka maskaxda ilmaha waxaa ku kobcin kartaa qaab aad iyo aad maaragtay u fudud adigoona waqti badan gelinaynin. isaga u baahanaysa inuu qalad sameeyo. hadduu qalad sameeyo waa okay. adigana waxaan kaaga baahanahay fiidiyoyadeyda gadaal inaad ugu noqoto si aad u aragto waxyaabaha kale oo samayn karta ilmahaaga maskaxdiisa inaad ka caawiso. omega 3 gan yaan ilaawin. dadka u jeeda omega 3 inay gadan karaan page-kayga ha ka gataano. intaas iyo nabadgelyo.